waxa la ceebeena waa iyaga, waxa sharaftooda lagu tuto waa iyaga, waxa maanta wiil inta qofka oo yahay mid u kaalmeynaya walaalkiisa ayaa ilaahay u kaalmeynaya. wiil haddii oo kula waa ku jecel iska daayay waa dhimara midiya qorta isaan isbreed walaalo. wiil hadduu ku dhaho ku dhimara dhimo awal jacayl waa xishood. kum raxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada janalkeena Dooxa TV. waxaan muuqaalo iyo waxyaabo aan uga hadlayno xaaladaha iyo waqtiyada say isku khilaafsan yihiin hadda aan ku jirno bulshadeena. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, marka hore gabalkana furo, kuna soo dhawaada barnaamijkeena. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Axmed Saciid iyo walaalkay Saciid Maxamed. kusoo dhawaada. ما شاء الله وانا وهي مسعيد وما سنتهاي Dooxa TV waxa aan ugu talagalnay in dadku ay uga faa'iideystaan arrimaha diiniga, arrimaha aad u wanaagsan oo ku gudbin doona iyadoo mowduucyo badan aad naga aragteen ayagoo soo aan ugu talagalnay inay dabcan aan daa'ino oo ay dabcan aad u farabataan oo noqdo meel aad looga faa'iideysto. caawana waxaan uga hadli doonaa diinal kariim anagoo marba eegayna social media arrimaha saddex marayo iyo wixii markaas cusub iyo waxyaabaha diinteena suuban ay ka qabto. caawana waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii Afrika saac ugu dambeeyay ee Facebook ka jiray iyo muuqaaladii dhammaan dadku ay wada arkeen. maxamed sayid ma sha Allah. horta markii muuqaal kulay waxay diintu ka qabto iyo taladii aan gabdhaha siin lahayn iyo wiilasha dib aan u dhiganaynaa, laakiin arrin yar oo yani gobol dhig oo aan ugu talagalay inaan si gaar ah uga cabirto wiilasha iyo gabdhaha toos ugu maago oo ah horta gabdhaha Soomaalida intooda badan waxa social media lagu fadeexayo oo mar walba lagu bahdiro oo sharaftoodii lagu dheelay oo magacoodii la dhaamay waa gabdhaheena Soomaaliyeed oo aan jeclahay quruxda badan ma sha Allah. waxa arkaysaa wiil wuxuu sameynaa xumaato cid ku mashquulaysay midna ma lahan, waxa leeyahay keep going hore u soco oo aad u maasda la dheerato banaanka ninka wallahi in reeblo caadi ah waay. gabara wax yar inta wiil khiyaano oo asagi ku aamin inkastoo wax wanaagsan ba ahayn marka ay ku aaminta aysan ahayn wax saas oo kale ay muuqaalka isku duubto qof haddana u sii dhiibto haddana ay sabab fiicnayn oo markii hore u sharci daraa haddana inay ku aamintay qofka duu ku aamino inaa ceebtiisa asturtaa loo baahan ay soo ceebeenayaan wiilasha. marka gabdhaha inta badan gabdhuhu waxay aaminsan inay wiilashu yihiin wiil hadduu la hadlo jacayl ba hadduu sheego inuu macnaha qofkaan uu yahay qof dhab ay ka tahay aaminaada aad ay gabdhuhu u jecel yihiin. boqolkiiba 90 waxaa la sheegaa gabdhaha inay yihiin kuwa jacaylka markii laga hadlayo arrintiisa ka run sheego kaliya. raggu inta badan ka run sheegaan jacaylka iyo waxba idin gaadin. qof rag hadduu ku dhaho waan ku jeclahay jacayl ma jireen waxa waaye okay waan ku jeclahay ku dhahay tusaale ahaan oo ku soo waca waan ku jeclahay walaashii waan ka helay oo waxaad igu jeclaatay marka quruxdaada ka helay. quruxdaada marka maxay tahay quruxdaada oo ka helay yani maxay noqon kartaa quruxda aad ka heshay ma dhaqankayga ma diinkayga ma wajigayga. okay waxaan ka helay dhaqankaaga iyo yani dhaqankaagaan ka helay. okay dhaqankayga haddaan isbedelo meesii jeclaan doontaa ma ku jeclaan dooni macnaheedu taas waa jawaab moogta. marka wuxuu kaaga helay hadday tahay qurux haddii quruxdan aad weysa saasuu kaaga tegay haddii uu kaaga helay yani markuu kaa gaaro quruxdaas intuu ka rabo kaa samaysto unbuu kaa tegi doonaa. marka hadduu ku dhaho wiil waan ku jeclahay lama aamino sababtoo ah lama dhicin wiil jacayl inta gabar u sheegtay yani xaddiga ugu boqolkiiba 99.9 waliba waxaa dhihi karaa wiilasha jacaylkooda wax macnaha asal iyo farac lama aha, waa arrin macnaha afkaas ah laakiin gabadha qalbigeeda waa niyadeeda. qof dhan oo qalbigiisa siiyo niyadiisa dhan siiyo oo inta soo qaato oo codhaha sawir ii soo dir horta wiilku ku sawir ii soo dir maalinkaas ogaa inuusan ku rabin isku doonaynin. qof ahamun u qabtid oo aad jeceshahay aad sawir iigu soo dir ku dhahay maba jiraba. muuqaal kol video ku soo waca iska daayay qof aad jeceshahay hadal aad yani dhig afkaada ka soo baxo oo aad dhahdo wuxuu noqon karaa hadalku ka sii farx gelinaya qofkaas maahan hadal qofkii uusan wax isku samaynaynin ma ka codsan kartid. jacayl markii laga hadlaayo waa qofku inuu ku jecel yahay si ikhlaas ay ku jirto iyo xishood oo dhaqankeeni soo banaa iyo diinta islaamka in amrayso. marka gabdhaha waxaan u dardaarmayaa kow inay horta aysan wiil haddii uu yahay ina adeerkaa iska daayay ka dadku ugu dhowdow yahay jacaylkii ugu darnaan oo ka dhaxeeyo 10 sano is jeclayeen
hadduu ku dhaho sawir iisoo dir maalinkaas kugu dambayso lianna sawir iisoo dir maanta sawir u dirtay berri waxaa ku xigto iisoo dir muuqaal adoo dhal cadaynayo saadan waxaa kusii xigto adoo xogaa madax qaawan maalin kusii xigto in lagaa duubo muuqaalka fadeexadan hadda ay Facebook oo kadib soo geliya Facebook dadka baraha bulshada oo kugu soo ceebay marka waxaan casharo kale dadku bartaan dhalinyaradu bartaan ah filmaan hindi iyo balaay ay daawanayaan halkaas waxay kasoo guurayaan dhaqan aan fiicnayn hadhowti gabdhaha marka ay saas ku bahdilayaan gabdhaheena marka haddii aad wiil u dirtid sawirkaada haddaad u dirtid call video xataa kula hadli laana wax yar oo kaa duubana waxaa laga yaabaa qofkan shirqool inuu ku socdo oo ku shirqoolay adna aad jacaylkan wato dhanba oo shirqoolay tan kale haddaa aragtid wiil yani ku soo wacay mar waliba mar kasta waxaad ogaataa yani aniga wiil ah waan dareemi karaa dhaqanka wiilasha waxaa waaye wuxuu iska dhadhiciyaa gabar haddaad inay jacayl ku awoodto mar walbaa la wacaa waa dhaqanaan naqaano wiilasha haddaan ah lafweyn ah marka hadduu mar aragtid wiil ku soo wacaa mar walba jacayl meeshas ma yaalee khiyaana socoto waa ciyaaraadan war ka helin oo dhammaadkeedii oo kugu soo adaadi war ma haysid marka gabar waliba waxa maanta la ceebeynayo mar walba wiil hadduu xumaatan sameeyo oo laga soo duubo cid buunbuuninaysa ma jirto gabaraan buunbuunin wiilaan buunbuunin laakiin gabdhaha in yani la bahdila loogu talagalay waxaa daliil kuga ah markii TikTok oo kale hadda gabdhaha dharkii dhigtaan waa saasay isku ruxayaan mid kasta waa soo gelaysaa mid walba wuxuu leeyahay keeb goon hore u soco ku hayaan markii muuqaal gabadh macnaha fadeexay u soo bareertay waa taas oo isqaawis ku soo bareertay hore u soco dhaha tii aan u soo bareerinay dhuluumaysa waxay la laabatayna asaa inta raadiyo oo soo bandhiga yani maxaa waa meesha u dambaysay xishoodka in ummaddeena ay ka tageen oo fadeexadii in la faafiyo qof walba oo kusii dhiirigala qofka kale ay sii sheergaraynayaan marka gabadhaha mar waliba wiil hadduu ku dhaho ku jeclaha maalin ku dhaho ku jeclaha kuugu dambayda inuu isku jeclay maalinkaas caddayn qof aad jecesha afkaas ma soo mari karto ku jeclaha runtaa la raacogta ma dhihi kartid qof dhifa oo daacad kalsoon tahay wuu jiri karaa laakiin kalsoonidu waa kalsoonidee kalsooni yacni aan qalbiga u soo qaban karin maskaxa is soo qaban karin adigu laakiin qof baa aamininba reexamar dhacay dhahan hadda hal is aamino inaan is iimaanaa karoon inaan lis aamininba inaan lis aaminaa karoon mar qofka haddaa xiriir jacayl ka dhaxayo ha aaminin adi hal xabo oo asxaan ah u soobinin laana haddaa asxaan u soobisid waa jaanis qofka kugu soo dhawaanayo wax kugu geysan kara dhib ah maasha allah sida walaalkeen oo maxamed noga soo waramaba arrimaha la xiriira macnaha maadaama aan nahay ilaahay noo abuuray rag iyo dumar ilaahay nolol usuu kaya daray oo aan kala maarmin abuna aadam wa umuna xaawa ayuu ka soo bilowday abtriskan ama dabcan systemka aan ku socono dadku waxba isaga baahan karaan waxna dadku wadaagi karaan waana wadada saxda in mar walba loo wadaago maadaama aan soo faahfaahino xogaa waxaan haddana mar kale aadi doonaa waxa diinteena islaamka ama diinteena qiimaha badan ay ka leedahay anagoo soo qaadanayna xadiidka abu hurayra ee ku yaala matn 40 nawiy ama kitaabka 40 nawiy rawahu muslim ayaa warinaya xadiis saxiixa xadiidku waxyaabo badan oo ka soo hadlaya man nafas aan mu'min kurbatan qofki ka fiida qof mu'min kurbad maalinta qiyaam ilaahay ayaa ku geysa fiidaya qofkii qof mucsira u kaalmay oo culays ah ilaahay ayaa culayskiisa asna maalinta qiyaam waxaa ku jirta xadiidka wama satara musliman عورته أم مستر مسلما ستره الله في الآخرة ما نتقيام قفك إلهي الصورة قف مسلما إلهي الصورة والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخير أنت قفك أو يهي مت أكال مينا ولا الكيس أي إلهي أكال مينا مرة بمرك ولا الك أكال ميسي الله أنا ومتك أكال مينا كالمضى وحيابها طبعا رسول كال ميكر ووحي ونعكس أكلين مركا دتكو وحوي وذاكران وين الأعداء waxyaabo badan ayaa jira social media dabcan oo hadda aad noogu soo cusub qofbad si ay u adeegsadaan arrimo dhaqanka macnaha ah in qof dadka muslimiinta fadeexadooda iyo xumahooda la faafiyo oo ummadda muslimiinta lagu faafiyo dhaqan ahaan diinta yani dhaqan dadka Soomaaliya muslimiinta ma yiri dabcan waa uu soo maray waxaan soo qaadan karnaa qisadii Aisha ummul mu'miniin radiyallahu anha xadiis al-ifki sida dhamaan dadku ay wada ogyihiin سورة النور آياتها كمية مركي أو عبد الله بن أمية بن سلال رأس المنافقين أوري أو كبين أبورت إلى مركي دنبه إلهي أو كوريا معنا أو طبعا آيات القرآن اللي وصلت تجي أو ليري عائشة أم المؤمنين وعلى كبين أبورت مركا بين أبورت كول جرا وحياة بدن دتكوا وذاقان قفك حتى إن واحد أو صار هنا الوجود جاتته تاس أول مركو حين وقتها صفة المنافق لماذا كمية أي قفك سقاعدة كرا مركا قفك مركي طبعا أدربتي إن طبعا لا شيء كستيد أما لا هذا شيء ودوين بدن أياجرا
diintana waxa ay noo faafinay ama dabcan sida ay diinteenu qiimaha badan ay noogu faafinayso oo dabcan ay nafarayso haddii marka qofku wadadii saxda ahayd oo ka leexdo oo wada qaldan aado dhibaatadan ayuu kala kulmi karaa maasha allah munaafiqiinta marka ayaga sifaadkooda maadaama qur-aanku kasoo hadlay balanqaadkooda wuxuu ilahay wuxuu yahay dadka munaafiqiinta oo muslimiinta ceebahooda raaca munaafiqiin dabcan aayadda qur-aanka ina almunaafiqiina fi darki alasfal min annaar waxa ay uga jiraan dabaqa meesha u hooseeda ayay ka degaan marka mar walba oo aad qofka ku been abuurtid waa sifo ka mid a munaafiqnimadii saas awgeed marka xadkaas gashid munaafiqnimaa noqonaysaa marka aad iyo aad maasha allah marka dadka muslimiinta ah waxaan u dardaarmaynaa in ay yani ay mar waliba ka waantoobaan inay xumo faafiyaan maasha allah xumaha adoo marka hore inay ku dhacdaba aysan ahayn haddana qofka walaalka hadduu xumo ku dhaco inaad faafisid oo aad la wadaagto qofka diintii ma uusan ka bixin haddii khalad uu ka dhaco macsuum ma aha wuu dambaabi karaa qofku wuu khaldami karaa laakiin inuu ilaahay uga toobad keeno ayuu leeyahay marka qofka muslimka hadduu khalad ka dhaco waa uu kasoo waantoobi karaa qofku kasoo laaban karaa khalad maasha allah ustaad marka maxaad kula talinaysaa gabdhaha in yani ay ku dhaqmaan markay la tacaamulayaan yani shukaansiga iyo arrimaha hasabaho kale wiilashada maxaa kula talinaysaa in yani maasha allah ustaad maxamed waa su-aal aada u qiimo badan horta wixii tala ah iyo wixii tusaale ah diintan islaamka ay ka hadasho laakiin waxa marka macnaha aan uga jawaabi karo waa is-xusuusin marka waxaa xusuusina macnaha gabdhahina qiimaha badan ilaahay wuxuu ku asturay xijaab uu soo dejiyey umuna caaisha iyo dabcan saxaabadii ku sifoobeen wadooyinkooda inay raacaan inay wax dhegaystaan inay dhahaan waxaan aan samaynayno maanta masaxa yihiin inay dabcan adkaarta akhristaan maadaama ay cadow badan leeyihiin maadaama ay dabcan mar walba iska dagan yihiin maadaama mar walba ay dabin loola damacsan yahay marka gabdhahiina aad qiimo badan waxaan kula talinayaa inay dabcan adkaarta iyo alla kacabsiga ay dabcan aad ugu dheganaadaan qofkii markaas ay wax wadaagaan ama dabcan soo gala xaydaabkoodana inay sifada islaamku ama uu noo baneeyay diintan islaamka waa midda lagu liibaanayay inay dabcan ku dhaqaan horta gabdhaha taas kula tali lahaa tan kale wiilasha maadaama ayaguna ay rag yihiin dabcan qofka aad wax kala wadaagayso ogow inuu yahay walaasha oo kale hooyada dadkii dabcan ama xaaskayga dadkii noo dhexaayay waa qof dad la haley kara ma ah marka mar walba oo aad qofkaas aad inaad wax la wadaagta rabtid waa inaad sifada ugu qiimaha badan ama qaabka ugu wanaagsan waa inaad kula dhaqantid oo ah diintu maxay banaynaya inaadan wax sharciga ka baxsan aadan ka dalban in dabcan wax munkara aadan ugu dhiirigelin inaad mar walba aadan xaydaabkeeda gelin inaadan mar walba ku tacadin adigoo dabcan ilaalinaya sharafta iyo karaamada hablaha soomaaliyeed ee dhammaan diintoodan ay aad uga hadashay marka wiilashana taasaan kula talin lahaa dhammaan rag iyo dumar inay dabcan wadada saxda ah maxay diintu ka qabtaan maxay kitaabka sunnada inay wax walba ku saleeyaan maasha allah anigu damaysta waxaan kusoo koobaya hadalkayga gabdhaha khaasatan ani gabdhaha la talinaya gabdhaha waa maanta dadka dulman oo xuquuqdoodii mar walba lagu turto ayaga waaye waxa la ceebeynaya waa ayaga waxa sharaftooda lagu turto waa ayaga waxa maanta wiil hadduu khalad sameeyo ama soo qaadan xataa muuqaal doo cid si shil loo soo aadama laha laakiin gabdhaha unbaa la dulmiyaa oo la hakradaa marka gabdhaha waxaan kula talinaya wiil haddii oo ku dhaho waa ku jecla iska daaya waa dhimaraa midiya qoorta ii saaran isbareed walaalow karfantaada anaa lacag karfanta dhiibaa mafaad marka gabdhaha taasa kula dardaarmaya wiil hadduu ku dhaho kuu dhima rabaa dhimo awalba waa socotay aakhiro waa kuu soo duceynaa sababtoo ah waa wax kale uma haysid inaa u duceeyay le waa madoo dhinto isdil walaalow waa kuu soo duceynaa inaa iska dhahayd waa lianna khiyaano wata haddii kale isdili ma isdil haddaa dhahmi isdilaya inta baxa waxaa arkay asoo berri meel kale ku laban marka wax la yidhaha jacayl aslan waa farcan wax macnaha soomaalida dhaqanka annaga u naqaan jacaylkaan u naqaana ma ahan jacayl waa xishood jacayl daa maqasha xishood waay waa yacni qalbi wanaag waa ikhlaas marka gabdhahan waxaan kula talinaya in aysan ku kahdoobin marnaba jacaylka hadda jiro iyo maxaa lihi waxyaabaha wiilasha ay adeegsadaan dabinada hadduu ku yaa wiil waa ku jeclahay oo aad ka aqbashid waxaa waa dabin u yaalay oo shabaq u yaalay aad kusoo dhex dhacdo dalaq waa ku jirtaa hadda markaas markaa kadib waa ku jeclahay waad ka aqbashay kadib dabinkaas waa taqaanaa markaad u dhigato sagaaro dabin ku dhigatay kuugu soo dhacdo waxaad ku sameeya waa taqaanaa ama waa qalane ama waa xanaanaysanay waxaad unta ka samaysanay marka haddii uu ku xanaanaysto ku guursadana waaba alxamdulillah si la rabay haddii uusan ku xanaanaysano wuxuu doona kaa samaystana waaba ku bahdilayba oo intuu rabo ulba gaaray marka jacayl wax yidhaha oo soomaali ay taqaana maba jirtaba marka gabdhahana intaasaan u dardaarmaya barnaamijkeenana waxaa intaas kusoo koobaya si gaarna waxaan leeyahay janalkan Dooxa TV haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaaladeena dhiirigelinta iyo ku dhisan yacni waaqica ay ku jiraan dhallinyaradeena
marka intaas kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.